الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله نحرسته عمر معلن عدو وكمدها سراكيش ciidamada booliiska Soomaaliyeed ka hor burburkii dawladii dhexe ee dalka ayaa maanta lagu aasay qabuuraha Sheekh Ooyaye oo ku yaala xaafadda Buula Sheekh ee magaalada Jowhar ee xarunta dawlad goboleedka Hirshabelle. aaska marxuumka waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, kan degmada Jowhar iyo boqolaal shacab ah oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee magaalada Jowhar. qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay aaska marxuumka oo la hadlay TV-ga Hirshabelle ayaa ka tacsiyadeeyay geerida ku timid. Allah ha naxariistee marxuum Cumar Macalin Cadow. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allah ha naxariisto adeer Cumar Macalin Cadow, ahalkii iyo qaraabadii iyo asxaabta uu ka geeriyoodana صبر إيمان الله كسي أسجنا جنة الفردوس الله كورابيو عندنا كذا شيء تقول في الدنيا إلى نجمة دقة وحنقول تحسيها الصحابة هلا دمان هرجوهر وهو عيننا بدونا أو ضيئة وهالجماعة الله ونحرس الله قبريس الله واسعيه هلديس يا قرابديس أو أخرى عبد الكريم عمر مع العرس أيضا صبر إيمان الله كسي يعني كنا كوي قداشي في الدنيا على نجمة دقة. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. وعن هالكان تعسية أنا قدرنا أهلكي أو كبحي أبا عمر معلن عدو أو كمديا صاحب كين نقول قالق عبد الكريم عمر معلن عدو آلوس هالكان يا نقول تعسيين إن جيريد كنت مذا أبا الله أنا حريست أبا عمر معلن عدو نحريست جننا الله كسيو eheladii iyo qaraabada dhamaan oo ka baxay dadkii heer Jowhar oo ka geeriyoodana sabr iyo iimaan Allah ka siiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. gudoomiyaha xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar Cabdi Xaamud oo kamid ah ehelada marxuumka ayaa ka sheekayay taariikh nololeedka marxuumka. Abu Umar Ilaahu naxariisto waxaan ugu taxsiiyay ehelada qaraabadii qoyskii ummadda Soomaaliyeed qaasatan degmada Jowhar dadkii yaqaanay وأنا دقمة جور عاد لوجي قانو كسر شقي دولتي عبد الرشيد إلا أيوة دولتي مارت يا محمد سياد برا دبلو صاب بالله دولت عبد الرشيد دولت محمد سياد برا الله بحدك لا هاي كبعد دين نبضون هاي ركي دولت العادي حنون أيا ويمد ويجان جديسة حمر أيا الله قاضي وقت جيسة أنا لما ذاق يريده الله ونحرست أبو عمر عن الله أنا وقال له قوس كافكود. xildhibaan Cabdiraxmaan Gacal Xasan oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa tacsi u diray ehelada iyo qaraabada uu ka geeriyooday marxuumka waxa uu eebbe uga bariyay in jannadii firdawsa uu ka waraabiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan joognaa qabuurihii Sheekh Ooyaye waxaan maanta aasaynaa isbitoore Cumar Macalin داخليدي دولة عبد الرشيد بولسكي وناك بدنا كنا قلنا تاني حلقي محمد سياد برا ونين الله يهديك لها مركز دنبه انت سواء كدون ونين انت نخلي اسكوت مد وحلنا قبر جيسا خير الله كسيو وعنا قلت عسيينينا اهلكم كتجي qaraabadiisa inuu Ilaahay qabrigiisa khayr ka siiyo gadaashiisana uusan Allah nafidnaynin. marka bulshooyinta Soomaaliyeed waxaan la wadaagaynaa tacsiidaas. marxuum Cumar Macalin Cadow Allah ha naxariistay ayaa qayb weyn ka soo qaatay dhismaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed waxa uu horay u soo noqday laba xidigle ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya. marxuumka ayaa aad looga yaqaanay magaalada Jowhar ee xarunta dawlad goboleedka Hirshabelle waxauna ahaa ruux ku caanbaxay ka shaqaynta nabadda iyo caawinta dadka masaakiinta ah. maanta ayaana la dhigay gurigiisii rumaad. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Mahad Ahmed Calasow Mahad Kuwara Hirshabelle TV Jowhar.